السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin maalmaha ka mid ah wiil dhalinyaro ayaa wuxuu ahaa mid baadi goobayo raadinaya sirta farxadda lagu helo. Marba qof soo u weydiinayay maalin maalmaha ka mid ah yaa waxaa loo tilmaamay in uu tago tuulo ku taala dalka Jeenaha halkaasuu joogo nin wadaad ah xakiim ah yacni xikmad badan waxa uu raadinayna agtiisa uu ka helay jawaabta. ninkii waqti iska maluminin muddo kadib waa uu baxay tuuladii uu tagay. markuu tuuladii tagay wuxuu iska dhaadhiciyay nafsadiisa u sheegay inuu helay waxa uu raadinayay muddo sanado ah. ninkii gurigiisii uu tagay oo la tilmaamay wadaadkii xakiimka ahaa markaasuu u gargaraacay albaabka. waxaa ka furtay haweeney ka furtay naag meeshaas da ahayd oo guriga joogtay. markaasay ku tiraahday soo dhawow. way soo dhaweysay guriga ayay soo gelisay. daarta banaankeeda ama guriga banaankiisa yaa ninkii lagu celiyo wax yar halkan sugayaa lagu yiri. gabadhii naagtiina waa dhaqaaqday. wuxuu sugayay cabaar 3 saacadood oo kaamil ah iyo meesha u taagnaa ninkii sugayaan loo imaanin. muddo kadib 3 saac markay ka soo wareegatay yaa ninkii oo raadinayay odaygii xakiimka ahaa xikmadda badnaa u soo banbaxay oo u soo baxay. markuu u soo baxay kadib agtiisa soo fadhiistay sigoo ninkan careysan xanaaqsan adigoo marti ah sidee 3 saac oo kale lagu dayici karaa isdhahaya. yaa ninkii wuxuu ku yiraahday su'aasha koowaad uu weydiiyay waxa noqotay shaah ma cabaysaa. waxaa la weydiiyay sida lagu dhahay ninkii dhalinyarada ahaa. markaasuu ku jawaabay ninkaasigoo yaaban intaan oo dhan ku sugayay maanta oo dhan meeshan ku taagnaa ugu dayacday haddana waxay dhahaysaa shaah ma cabaysaa. si carar leh ayuu sida ku jawaabay. wadaadkii xakiimka ahaa isla markii waa ku celiyay aniga waxaan ku dhahay shaah ma cabaysaa. markaasuu ninkii yiri ha waan cabayaa shaah baa cabayaa si carar leh. markaasuu ninkii shaahiyo u shubay. markaasuu su'aal kale weydiiyay koobka ma kuu buuxiyaa mise haafan kaaga dhigaa. markaasuu wuxuu yiri ma su'aashaas ay weydiinaysaa buuxi koobka. ninkiina koobkii ayuu bilaabay inuu shaahi ku shubo. ninkii xikmadda badnaa caqliga badnaa koobkii shaaha wuu ku shubay markuu buuxsamay waa ku sii waday ilaa oo dhulkii kaga daato uu daato. ninkii markaa caro ayuu la kacayo xanaaqay soo ma jeedid waa buuxsamay waa daadanaya qaylo ayuu meesha ku galay. ninkii markaa wadaadka xakiimka wuxuu yiri okay waxa aan rabay hadda ayaan helay adigana waxa raadinayso waa heshay wareysigina waa dhamaaday albaabka ka deg. ninkii waa yaabay sidee aniga waxba aan ma ii sheegin qaylo ayuu galay. markaas la dhahay soo bax horta waa la soo istaajiyay albaabka banaanka la keenay. markaas waxaa la yiri aqliga qofka bini aadamka ama sirta guusha iyo farxadda lagu helaa waxay tahay marka weelkaaga uu faaruq soo noqdo iyo soo laabo dhahay hadda waa buuxdaa. yacni qofka markuu careysan yahay aad u careysan yahay qofka waa qof buuxa waxna ma qaadaan weel hadoo buuxsamo wax ma qaadaan wixii hareerihiisa uu daadin oo haleena kaliya. markaasuu yiri wiilkaygiiyow haddii aad rabto sirta guusha iyo farxadda lagu helaa waxay tahay inaad nafsadaada ka adkaato. التحكم على النفس واحد هذا نفس هذا كأتكاو درنت هذا كأتكاو يعني يسن كسامين ظروفها كوجا هريرسن يا كسامين سرت فرحة لوجه لا يوحى أي تهاي إن النفط هذا أذيع أتكاتو أتحكمتو control yourself. سلام.